ورما أقبل إنها هذا رأي أوضل لها دقف نجاري xildhibaan awdal waa Somaliland dadka Somaliland way soo dhaweeyeen heshiiska ay xukuumadda Somaliland la soo gashay dalka Itoobiya awdalna waa Somaliland maxaad ku diidan tahay awdal ma meel gooniye ku taala darre awdal nahay min hindad la dheelsan karo dadkii xabashida hilibka cayrinka ku kalifay baa haylinay bartaan cunaan gaajada ninka islaantaada doonaya intaada loogu madaraaleeyo Somaliland waxay qaaday wadadii burburka markaynu run ku hadlayno deemaa dadka beesha dhexe ku nool waxa weynba ka siyo marka ictiraaf la yiraahdo war ictiraaf dhulugma badshadii xildhibaan maxamed xuseen maydhane oo ka tirsan mudanayaasha golaha wakiilada Somaliland isla markaana ah mudan laga soo doortay gobolka awdal ayaa ka hadlay mudaharaad ka socda magaalada Boorame xarunta gobolka awdal sidoo kale xildhibaanku waxa uu meel cad ka istaagay isla markaana ka soo horjeestay heshiiska ay dhawaantan Somaliland la gashay dawladda federaalka Itoobiya waxa uu sheegay in heshiiskaasi uu yahay run ahaantii heshiiska badda lagu bixiyay waxba kama jiraan cid alla cid badda Somaliland fasaxi kartaa waa hanti ummadda Somaliland ay leedahay khaasatan haddaan ree awdal nahayna marnaba ma aqbalayno badayada in Itoobiya laga iibiyo ama laga kireeyo ninka islaantaada doonaya intaada loogu madaraaleeyo waxaba xaraana Itoobiya maanta ma ay dhalin inta jirtaba waxay ku taamaysay dhul Soomaaliyeed inay qaadato cidda u fududeysay baaba dambiilaana u qaba cidda u fududeysay hantida ummadda Somaliland ay leedahay ninka doonaya inuu qaato in laga kireeyo iyo inuu qaato kiran meesha wax la yiraahdo ma jirto been iyana ummadda loo sheegay ictiraaf baan ku bedelanay waxaad arkaysay la taliyihii ra'iisul wasaaraha Itoobiya inuu inii cadeeyay ummadda Somaliland waxaan u sheegaynaa inuu u cadeeyay inay markay dhulka hantiyaan ay degaan ay la wareegaan ay ictiraaf ku barbaari doonaan Somaliland war maskaxdiina ayaa loo ciyaari malan ummadda Somaliland maskaxdiina waxana maaha wax gala iibiyo kiramidna ma Somaliland waxay qaaday wadadii burburka markaynu run ku hadlayno mas'uuliyadda cidda maanta u haysa waa cidda badii Somaliland ay lahayd u gacan gelinaysa ciddii doonaysay damaca ahayd markay sidaas tahay darre awdal nahay min hindad la dheelsan karo dadkii xabashida hilibka cayrinka ku kalifay baa haylinay bartaan cunaan gaajada Axmed Guray baa ka soo jeeda dad taariikhdooda iyo hantidooda la tirtiri kara mani waa meeshii ay ka soo gashay saylac iyo lughaya diinta islaamku Afrika markaynu run ku wada hadlayno wax maanta taariikhdooda timid ma ilaa waqtiga ilaa maanta dabacda Itoobiya kaga jira anigu waxaan qabaa marka cidda u fududeysay ee doonaysa in Itoobiya ku wareejiso ayaa dambiilo qareen khayna wadana ah markaynu run ku wada hadlayno marna ma aqbalayno intuu qof naga noolyahay ibada laga kireeyo cidii damaca ay doonaysa ee qaadanaysa ee xoog ku qaadanaysa in laga kireeyo marnaba ma aqbalayno lagana iibiyo caalamka kale in damac kaga jiran waa laga kiran karaa waa inaal gashan kalaan laakiin ninka hantidaada doonaya ee xoog baan ku qaadanaya waliba kale ku cadeeyay inaad tiraahdo heshiis baan la soo galo ictiraaf baan ku bedeshay oo ummadana been loo sheego war dadka Somaliland ku nool waxa la been yaa laynaga iibin ra'iisul wasaaraha la taliyaha qaranka amniga ee Itoobiya waa kiidin cadeeyay deemaa dadka beesha dhexe ku nool waxa weynba ka siyo marka ictiraaf la yiraahdo war ictiraaf dhulugma badshadii waxa caalamku wax la kala bedishaa Itoobiya waqtigii reserve area imka Soomaaliya markii la lahaa 100 mitir baan ku siinaynaay dhulka soo wareeji waxay diiday inay soo wareejiso
markaas ana laynagu sheekaynayna waxaan ku bedelanay ictiraaf waxba ma aqoonsan karta dee shan waddan uba caalamkan wax la qoonsada jimciyadda qurumaha ka dhaxaysana ka saxiixi kara oo shanta veto power kale waxay wataan in isaguba aan ku dhaawin baan ictiraaf ka soo siistay war ma aqbalayno haddaan ree awdan lahaa hadduu qof naga hadhayo wasalaamu calaykum waraxmatullahi xildhibaan awdal waa somalilan dadka somalilanna way soo dhoweeyeen heshiiska ay xukuumadda somalilan la soo gashay dalka etoobiya awdalna waa somalilan maxaad ku diidan tahay awdal ma meel gooniya ku taallaa iskaasi maba jiro waxa kuu caddeeyaan ku yidhi la taliyaha amniga qaranka miyadaan haynin inuu yidhi marka dhulkana gacanta naloo soo geliyo ee la wareegno ayaan ixtiraafkeennii baarbaari doonaa ma heshiis baa waxaas mudaharaad baa awdal ka socda arrintaa miyaa taageersantay adigu xaq bay u leeyihiin inay hantidooda iyo baddooda iyo dhulkooda difaacdaan